haweeney maqaayad yar ka shaqeynaysa gobolka Queensland ee Australia ayaa waxa lama filaan ku noqotay inuu weerar ku soo qaado tuug maas garo ay u xiran tahay oo lacag doonaya inuu ka dhaco laakiin waxa badbaadiyay geesi nin tuuga u bararay oo ku difaacay kursi iyo weelka dhirta lagu beero oo maqaaxida dhex yeelay muuqaalka dhacdan laga duubay oo booliska Queensland ay soo dhigeen bartooda Facebook ayaa waxa muujinaya tuugii oo maqaaxida soo galaya kowdii habeenimo isagoo xiran dhar madow iyo sidoo kale maaskaro oo wajiga uu ku soo dabooshay waxaana ku hubaysnaa bangad tuugii inta uu ku mashquulsanaa gabadhii shaqaalaha ahayd ee ay lacagta u soo saareysay ayaa waxa gadaal kaga yimid nin isla markiiba gacanta ku soo qabsaday kursi wadada yaalay oo tuuga la haleelay laakiin tuugii waxa uu suurta gashay inuu mar labaad soo kaco isagoo isku dayay in uu bangadii uu watay la haleelo ninkii isku dayay inuu maqaaxida ka difaaco mar labaad ayaa ninkii waxa uu suurta gashay hub kale oo yaab badan inuu gacanta ku dhigo isaga oo markaasi soo qabsaday oo ay gacantiisu haleeshay weel dhirta lagu beero oo maqaaxida yaalay markaas ayuu tuugii ku weeraray tuugii marka uu arkay inuu ninkani mintid yahay xoogaa lacagna ay gacanta u gashay ayuu isku dayay in uu ka baxsado maqaaxida laakiin ninkii geesiga ahaa kama aanu harin ilaa uu ka soo dhigo lacagta yareed oo gacantiisa ku sii qaatay dhaqan Cumar barnaamijka subax wanaagsan GoobJoog TV